wararka Sacuudiga ka imanaya waxay sheegayaan dowladda Sacuudigu soo xaqiijisay in laba bilood ka hor dowladda Iiraan ay xidhiidh la samaysay kooxda Xuuthiyiinta ayna siisay hub iyo gantaalo casri ah. Xilligan aanu joogno, waxaa ka mid ah hubka la siiyay gantaalo loo isticmaalo inuu wax dalooliyo siiba maraakiibta maraysa badda iyo inuu dalooliyo taangiyada dagaalka. Xawaaraha gantaalku jarayo waxa uu gaadhaa 100 kiiloomitir saacaddii. Waxaana hubkan laga soo dejiyay magaalada Xudayfa ee Yemen. Warbixin lagu qoray bogga Dreyfus ee Mareykanku isticmaalo waxay sheegeen in markabkii shidaalka siday ee Ingiriisku lahaa weerarkii lagu soo qaaday iyo gantaalkii ku dhacay uu ahaa mid lagu soo sameeyay dalka Iiraan. Kooxdii gantaalka soo riday ay laba midkood noqonayaan in dowladda Iiraan si toos ah u weerartay markabka ama isticmaashay kooxda Xuuthiyiinta Yemen si ay u weeraraan markabka shidaalka siday. Khubaro baadhay nooca gantaalka uu yahay waxay yidhaahdeen gantaalka la isticmaalay noociisu uu yahay Lambeth, waana nooc ay samayso Iiraan. Ka hor waxay dowladda Iiraan ku weerartay maraakiibta shidaalka qaada sanadkii la soo dhaafay, sidoo kale ay u isticmaashay dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan maraakiibtii shidaalka siday ee maraysay badda Khaliijka xilligaas. Waxayna Iiraan awoodaa inay maamusho badda Khaliijka iyadoo isticmaalaysa gantaalkeeda Lambeth. Sacuudigu waxay ka baqayaan Xuuthiyiinta oo xilliyadan dambe hub iyo gantaalo ay ka heleen dowladda Iiraan, waxaana ka mid ah sawaariikhda Cruise iyo gantaalkan Lambeth. Iyo waxay Iiraan ku caawisay oo kale doonyo yaryar oo qoryo ku rakiban oo dhaqso badan oo badda si daran u ilaaliya wixii maraya ee xuduudkooda kusoo xadgudba. Xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay ku tashadeen in ay samaystaan guddi khubaro Ingiriis ah, shaqadooduna tahay inay saaraan 5 walxo qarxa oo badda guudkeeda lagu xidhay oo dowladda Iiraan ay dhigtay Badda Cas. Walxahan oo ay ugu talagashay dowladda Iiraan maraakiibta Badda Cas maraysa sidii ay ugu qarxin lahayd, waana nooc bambooyin waaweyn oo badda dusheeda sabaynaya. Khubaradu waxay sheegeen in bambooyinkaas la qaadi karo, laakiin ay amniga meeshu ay faraha ka baxday, aanay ka baqayaan ciidamada Xuuthiyiinta oo goobahaas ku dhow. Sacuudigu wuxuu walaac ka muujiyay weerarada soo qaadaan ciidamada Xuuthiyiintu. 2 toddobaad ka hor waxay weerareen kaalmaha shidaalka dekedda Jidda, waxay dhaawac u geysteen haamihii shidaalka. Gantaal laga soo tuuray xuduudka Yemen ay ka
dambeeyeen Xuuthiyiintu. Maalmo kadib ay dowladda Sacuudigu ku sheegtay inuu falkaas ay geysatay dooni laga soo buuxiyey walxaha qarxa, taas oo ku qaraxday markab uu leeyahay Ingiriisku. Waxyeellona ka soo gaadhay xagga hoose ee markabka, waxayna ku eedeysay xoogagga Xuuthiyiinta Yemen ee taageerto Iiraan. Maraakiibta shidaalka qaada waxay si taxaddar leh u maraan badda Khaliijka, iyagoo iska ilaalinaya xuduudka Iiraan ku leedahay badda Khaliijka. Haddii markabka xamuulka qaada soo galo xuduudka badeedka Iiraan, waxaa ku dhici kara in gantaal lagu dhufto ama la kaxaysto dowladda Iiraan ay kaxaysato, ama miinooyin badda ku xidhan ku qarxaan haddii ay soo galaan badda Iiraan. Waana meel halisteedu uu Sacuudiga u sheegay Maraykanka. Dhowaanahan waxaa yimi markab dagaal oo xambaarsan diyaaradaha dagaalka oo u yimid siday u difaaci lahaayeen Sacuudiga haddii uu duulaan ka yimaado dhinaca Iiraan.